dowladda dalka Kenya ayaa waxa ay joojisay xalfad la doonayay in lagu soo dhaweeyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. wariyaheenna Cabdishakuur Faarax Cigale ayaa magaalada Nairobi warkan inooga soo diray. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah musharaxa xisbiga Daljir oo dhawaan soo gaaray magaalada Nairobi lana doonayay in xaflad uu kula kulmi lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya oo la doonayay inay ka dhacdo hoolkaasi Ali Muslim Club ee magaalada Nairobi ayaa dawladda dalkani Kenya ay amar ku bixisay in la joojiyo munaasabadaasi. ciidamada ammaanka Kenya ayaa ku wargeliyay dadkii qabanqaabinayay munaasabada lagu soo dhaweyn lahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur in la baajiyay xafladda. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dawladda dalkani Kenya ay ka dambeysay in la baajiyo xafladda lagu soo dhaweynayo xafladii lagu soo dhaweynayay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waxa uuna intaasi ku daray in dawladda Kenya aysan raali ka noqon doonin in mucaaradka dawladda Soomaaliya ay ku shiraan gudaha dalkani Kenya. sidoo kale Aadan Barre Ducaale ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda Kenya ay taageersan tahay dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uuna ka dhawaajiyay in dawladda Soomaaliya ay mudan tahay in la garab istaago ciddii ka soo horjeedana aysan gudaha dalkani Kenya waxba ku qabsan karin. dhanka kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa shaaca ka qaaday in dastuurka dalkani Kenya uusan qoreynin in xisbi siyaasadeed aan ka dhisnayn gudaha dalkani Kenya uusan shir ku qabsan karin waddankani Kenya. Aadan Barre Ducaale ayaa beeniyay wararka sheegaya in dawladda Soomaaliya ay ka codsatay inay baajiyaan xafladii lagu soo dhaweyn lahaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waxa uuna sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya ay go'aankaasi qaadatay. ugu dambeyn siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa bartiisa